شيخ طيب زياد أديكو دلك علمادي وقوينا كمدا waxaan doonaynaa su'aal muhiim ah maanta inaan ku weydiino qofka muslimka ah xurmadiisa iyo sharaftiisa oo meel laga dhaco oo laga been abuurto oo been laga sheego marka dambena dadku yiraahdaan maan moodayn saase wixii warkii oo dhan adduunkii lagu faafiyo maxaa dhibaato inoogu sugan oo diintu ka qabtaa sheekhow الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حج عمر أدبان كل سلامية وإن شاء الله تعالى جمعة مباركة horta qofka muslimka xaqiisu aad buu u weyn yahay ilaahayna aad buu u weyneeyay quraankana ilaahay tabaaraka wa taala in badan buu kaga hadlay ilaahay wuxuu inoo sheegay oo inna yiri amarna inagu siiyay waxa amarka ina siina waa ilaahay tabaaraka wa taala oo ilaahay ina leeyahay war hadii war la idin keeno ama aad wax maqashaan ilaahay wuxuu yiri hubsada oo waxaas la boodin oo hubsada ma jira bise ma jiro waxa loo sameeyay waxa weeyaan ilaahay wuxuu yiri an tusibu qawman bijahalatin dad baa laga yaabaa si qalad ah inaad wax uga sheegtaan si qalad ah inaad u tiraadaan waxa uu sameeyay si qalad ah inaad u tiraadaan waxa uu la yimid wixiina aan ka jirin kadibna natiijadu waxay noqonaysaa qiyaamaha markii la isu yimaado ee la isxisaabiyo ee maxkamad ilaahay la tago fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wixii aad tiraahdeen ee sheegteen ayaad aakharo ka nadaaman doontaan buu ilaahay yiri marka si aydan nadaamada ugu dhicin odan ilaahay hortiisa wixii aad tiraahdeen aydan ka qoomamaynin war waxa tiraahdaan hubsada buu ilaahay yiri waxa sheegaysaan hubsada buu ilaahay yiri wax kasta halboodina ayuu in yiri ilaahay tabaaraka wa taala nabiguna sallallahu alayhi wa sallam arinta uu inoo sii sheegay wuxuu in yiri nabigu alayhi salam kafa bil mar'i kadiban qofka been waxa ugu filan ilaahay agtiisa iyo nabiga agtiisa iyo qiyaamahaba inuu qofku ka warramo oo la boodo wax kasta oo maqlo waxaad maqashaba hadaad la boodo waxaad maqashaba hadii aad faafiso waxaad maqashaba hadaad waxweyn aad ummadda aad gaarsiiso intaas been kuugu filan ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wa sallam xadiis kale wuxuu nabiga alayhi salatu wa salaam inooga digay waana xadiis muhiim ah nabiga alayhi salaam ribadu ka hadlay ribadan adduunka deemaanta wareerisay buu ka hadlay nabigu wuxuu yiri الربا 72 بابا ribadu waa 27 dambiga ugu yar waxa weeyaan buu nabiga kaleey salaam qofka oo hooyadii xumaan ula taga qofka oo hooyadii ka zinaysta waa dambiga ugu yar ee 27 ka dambi aha ee ribada ka dhasha nabigu muxuu kaleey salaatu wa salaam wa inna arba riba riba la galo to ugu weynina waa qof muslim ah al-istitaalatu fi ird al-muslim bighayri haqqin qof muslim ah oo sharaftiisa been laga sheego magaciisa been laga sheego qof muslim ah oo karaamadiisa xumaan laga sheego qof muslim ah oo dadaalaya oo shaqeynaya oo muslim ah oo alla yahay inaad ku been abuuratay 27 ka dambi ee ribada ku jirta way ka weyntahay buu nabiga sallallahu alayhi wa sallam waana xadiis saxiix ah marka waad qiyaasi kartaa 27 dambi oo dambiga ugu yari ay tahay qofka hooyadii zina ula tago xumaan ula taga waxa oo dhan ka weyn qof muslim ah oo been ka sheegto ama qof muslim ah oo tirada waxa yiri wuxuuna oranin ama saasuu raba wuxuuna rabin ama saasuu sameeyay wuxuuna sameeynin ayaa waxa oo dhan ka weyn waxaan ku soo gabagabaynayaa xadiiskan Abu Daawud ku soo arooray Ahmad Nasuul musnadkiisa ku soo arooray Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala uu saxiixiyay wuxuu yiri nabiga kaleey salaatu wa salaam man qala fi mu'minin qof mu'min ah buu nabiga kaleey salaatu wa salaam qofkii ka yiraahda waxa yiri ama qof mu'min aha ka yiraahda waxa sameeyay wuxuuna sameeynin ama waxa la yimid wuxuuna la imanin وحير النبي عليه الصلاة والسلام هذلكم وهذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسكنه الله ردقة الخبال إلهي قيامة قفك وحود جيا وبي لير هذا ردقة الخبال صحابة ويديان وحير رسولك إلهي وردقة الخبال وامحي قيامة هدتك أهل النار مركي أوميغا لجليو أوميغا النار جهنم ويفوق بحان وحاكد عديك فربضا ملح فربضا dhidid farabadan qurun farabadan ayaa ka data dadka ehlunaarka marka malaxdaas iyo dhiigaas iyo uuska ka data ehlunaarka marka dambe waxay isu bedelaan wabiyaashaas
qurmoonkooda iyo urkooda iyo kulaylkoodana naarta jahannama ayaa ka subxaanalaysata oo ilaahay ka magan gasho tira ilaah waxaan ka magan galay webiga radqatul khabaal marka nabigu wuxuu calayhi salaatu illaahi wasalaam xadiiskaasi waa muhim aad buuna muhim noogu wala yahay wuxuu yiri nabigu calayhi salaam qofkii qof muslim aha ka sheega ee yiraahdo sidaasuu yiri mana una oran sidaasuu sameeyay mana una sameeyay waxaasuu la yimid mana una la yimanin saasuu rabaa lamana imanin qof muslima qofkii ku been abuurta ee waliba adduunkana sii gaarsiiya wixina uu been yahay wuxuu nabigu calayhi salaatu illaahi wasalaam webigaas naarta jahannama ilaahay ay ka magan gasho ayuu ilaahay geliyaa waliba nabigu muxuu raaciyay calayhi salaam kana soo bixi maayo webigaas uumigaale ee qurunkaale ilaa uu ka soo saaro kelimadii uu sheegay qofkii kamana soo saari karayade يعني ما سمين كريه كلمة جديدة مركا عذابك معناه وحويا وكجريا ولقي إلى ما وحويا سمايا وحي وير ما نسمين كريو مركا ولا ليال نفط إذا وحان وقد دردار ميا ضدك مسلمين توردنا نوقد دردار ميا وروحنا لنا هاي أنكفير سنو وروحنا نجدبين هاي إنه أنكفير سنو أنه بسنو خاصة برها بالشدة ما أنت خير نوجرا شر نوجرا نبينا عليه الصلاة والسلام وحين نور شيء قفك بنت اللي عذابه قفك أقدرني وقف أنتو الصبح سوك الله هاي بين لا سوك الله هاي بنتنا أدونك أردن إيجادك مركب بين شكتو القف مسلمة بين كشكتو القف مسلمة وحنا السمينين أتكتر هذا وحين أتكفى في صبرها بالشدة أتكفى في يوتيوب أتكفى في فيسبوك أتكفى في سوحويا برها بالشدة ولا استعمال شيء ملايين كقف الدعوان هي الدم بجودة أديك عليه حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم وإنه يلا وحلا فيا ما أنت أدبر لو به يرنت إلا فافيو وناجا إلا فافيو دين إلا فافيو أمر كإله إلا فافيو إن وحويا أمد السكان يلا فافيو وحاصلنا أجربات كهلي لكن دنك كله قفكي استخدامه أما وحويا وحدة أمدي كلاجينا أما بين أبورد بوكجر أما بهتان بيكجرته أما افتراء كجرو أما وحويا وإنك مغلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأنا النصيحة عن نفتي وسجيدين هيو يددك ولا لا يداها إلهي وحنك بريا جمعة أن جوجنا جمعة بركة إنه النوجر ديجو ومدنا إلهي تبارك وتعالى أمني إيمان ونسيو أمني جينا إلهي النصوجو نودك أن الله ينو بركة شعبك الله بركة حكومة الله ينو بركة مسلمين ترى إباتنا ست إلهي ونكقاضو آدن حاجي وانكو سلامية جزاك الله الخير وبارك الله فيك شيخ طيب زياد